Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha barta ciyaaraha.com ayaad kala socon doontaan Nasr Xasan Maxamed Nasriin oo idila socodsiinaysa. barnaamijka waxaan ku bilaaban doonaa kulamadii xiisaha lahaa ee xalayta ka dhacay qaaradda Yurub waxaana ku horeyn doonaa horyaalka Serie A oo toddobaadkan la isku soo laabtay ciyaarihii xiisaha badnaa ee ka dhacay ciyaartii ugu xiisaha badneed waxay ka dhacday garoonka caalamiga Stadio Olimpico magaalada Roma ee dalkaasi Talyaaniga iyadoo isku arkeen kooxaha AC Milan iyo kooxda kubadda cagta iyo Lazio waxaan ognahay labadan kooxoodba waxa wata laba ciyaartooy oo waaweyn oo qaranka Talyaaniga soo maray mid waa Simone Inzaghi oo hogaamiye kooxda caasimadda ka imaada midna hogaamiye kooxda ninka lagu magacaabo Renato Gattuso waana kooxda gobolka Piandamudo ka imaada ee Milano labadan kooxood kulan xiiso badan ayaa dhaxmaray kulankoodana wuxuu ahaa kii toddobaadkan ugu xiisaha badnaa iyadoo waliba ciyaarta ay ahayd ciyaar Milan ay diyaar u ahayd inay soo laabasho sameeyso si ay kaga mid noqoto ama hadii ay guuleysan lahayd waxay ka mid noqon lahayd kooxaha ugu sareeya horyaalka Serie A dalka Talyaaniga balse dhibicda muhiimka ay ku soo qaateen garoonka baaxadda weyn ee Olimpico muhiimad weyn ay ugu jirtaa kooxda uu horkaco Gennaro Gattuso ciyaarta waxay ahayd ciyaar aad u adag waxaana goolka ku horeeyay kooxda kubadda cagta AC Milan qaybtii hore waxa lagu kala nastay barbardhac Ibra kaliya waxa la diiwaan galiyay in hal jaalo uu qaatay xidiga ugu qaalisan kooxda Lazio marka suuqa la dhigay ninka lagu magacaabo Sergej Milinkovic-Savic isagoo daqiiqadii 33aad ciyaarta jaalo qaatay balse 78 daqiiqo markii dib la isugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta gool qurux badan waxa dhaliyay xidiga kooxda kubadda cagta AC Milan qadka dhexe ugu ciyaaro Franco Kessié arriva Kessié deviazione palla in porta 1-0 per il Milan all'improvviso al minuto 78 ha fatto gol il 79 Kessié 1-0 ciyaarta markii ay sidaas noqotay waxa la islahaa kooxda kubadda cagta AC Milan caawa ay badin doontaa laakiin waxa hubanti noqotay Lazio in ama waxaan ilownay Lazio inay tahay koox daqiiqad walba dagaalami karta daqiiqad oo kadib 87 daqiiqo waxa kaarka hurdiga anrado kaarka jaalaha waxa loo taagay ciyaaraanka qaranka Talyaaniga ninka lagu magacaabo Gianluca Donnarumma balse 90 daqiiqo isagoo isleeyahay ninka lagu magacaabo Renato Gattuso waxa gaartay guul waliba garoonka dhibka badan ee Olimpico ayaa guul ku gaartay waxa ka diiday ciyaaryahanka waa xidiga kooxda kubadda cagta Lazio ninka lagu magacaabo Jagwan Korea kaasoo isagana gool qurux badan ugu bareejiyay kooxdiisa ciyaartana 90 daqiiqo saddexda dhibcood oo loo sii wada magaalada Milano waxa uu yiri xidiga lagu magacaabo Jagwan Korea noo kala qayb oo min dhibic aan kala qaadano 90 daqiiqana sidaas ayaa lagu kala nastay sidaasi ayayna ciyaartu ku noqotay barbardhac hal iyo hal kooxda Lazio qanacsanna waxay tiri hadda waa naga dagi kartaa inaad magaalada Milan dib ugu laabataan adinkoo dhibic wataan hal dhibicna aad kaga tagtaan magaalada Roma ee caasimadda dalka Talyaaniga sidaasina waxay ku noqotay kooxda kubadda cagta AC Milan in ay gashay ama in ay dhibic muhiim ay soo qaateen sidoo kale ciyaarihii Serie A ka dhacay waxa kamid ahaa shalayto ilaa iyo xalayto kooxda kubadda cagta Parma laba gool ay kaga badisay kooxda Sassuolo halka Bologna iyo kooxda Fiorentina barbardhac Ibra ku Empoli waxay xasuuqeen kooxda ka imaada gobolka Bergamo ee Atlanta iyagoo waliba 3 gool iyo 2 ugu badiyay Napoli xal dhibaato ay la kulmeen maadaama barbardhac ay la dhaafi waayeen kooxda kubadda cagta ee Chievo Verona Ever ciyaartii ka dhacday garoonka godka Naartana ayay ku heshiiyeen labada kooxda ka imaada magaalada Napolisna dhibaato ay u tahay waliba dib u dhac in dhibic ay ka helaan kooxda kubadda cagta Chievo Verona Lazio iyo Milan hore ayaan kaga soo sheekeynay iyagana barbardhac hal ay ku heshiiyeen halka Genoa iyo kooxda kubadda cagta Sampdoriana iyagana kulankooda uu ahaa mid kale oo xiiso badan hadii aan fiirino kala sareynta horyaalka Serie A AC Milan waxa aan fiirino bal hadii xalayta ay barbardhac galeen halka ay soo tiigsadeen Juventus cid hor istaagi karta ma lahan 37 dhibcood ayay ku hogaaminayaan horyaalka Serie A iyadoo hore aan u niri horyaalkan waa Juve sidoo kale Napoli xalayta bareejo la kulmantay sidoo kalena dhibic ka qaadatay kooxda Chievo ama Chievo gooy kala kulantana kaalinta labaad ay ku jirtaa 29 dhibcood ay leeyihiin alaa marka horyaalkaas la iska dhaafay Juventus iska leh Inter Milan 28 dhibcood ay leeyihiin halka kooxda kubadda cagta Lazio iyo Milan oo wada heshiiyayna
haddii horaan kugu sheegay Milan ay xalayta badan lahayd Milan kaalinta afraadeed biduun shuruud gal lahayd laakiin kooxda caasimada aad ay u dhib badneed una aqli badneed waxay noqotay ciyaartii barbardhac ay ku galeen in kaalinta afraad ay baaqi ku sii ahaato kooxda kubadda cagta Lazio Milan 22 dhibcood ay leedahay Lazio hal dhibic ka hooseeyaan 23 dhibcood leh Parma lixaad ay ku jirtaan 20 dhibcood halka kooxda kubadda cagta Roma ay ku jirto kaalinta 19aad waa kala sareynta horyaalka Serie A kooxda AC Milan waxay rajo weyn ka qabaan xilli ciyaareedkan inay ka mid noqdaan afarta kooxood ee ugu sareysa horyaalka Serie A ee ku dhameysan doona waa afarta ugu sareysa si tartanka Champions League xilli ciyaareed soo aadan u ciyaaraan Premier League yana hadii aan fiirno laba kulan oo kaliya yaala ciyaare kulan kamid wuxuu dhex maray kooxaha Wolverhampton Wanderers Nuno Espirito Gomez kooxdiisa guul dara ay la kulmeen waxaana guul gaartay kooxda kubadda cagta Huddersfield iyadoo Halvis marti ku ahayd guriga kooxda kubadda cagta Wolverhampton Wanderers Aaron Moy ayaa 6 daqiiqo gool ugu shubay kooxda Watford sidoo kale Aaron Moy ayaa mar kale soo xiray goolashii kooxda kubadda cagta Huddersfield ay kaga badiyeen kooxda Wolverhampton Wanderers 74 daqiiqo ayuu ka dhaliyay goolkii labaad ciyaarta Robin Nafas ayaa 87 daqiiqo jaal ka qaatay kooxda Wolverhampton ugu dambeyntiina ciyaartii ka dhacday garoonka Milan Stadiumna waxay ku soo dhamaatay 2 gool eber oo looga badiyay ninka Portugiiska ah ee Nuno Espirito Gomez isaga iyo kooxdiisa Wolverhampton Wanderers ciyaartii xiisaha badneedna waxay dhex martay kooxaha Bournemouth iyo kooxda kubadda cagta Arsenal waa Vitality Stadium ciyaartii ka dhacday oo sidoo kalena Craig Bowson uu dhexdhexaadiyaha ka ahaa ciyaartaas qaybteedii hore waxa lagu kala nastay barbardhac hal iyo hal kooxda kubadda cagta Arsenal ayaana goolka ku horeysay on gool iska dhaliyay xidiga kooxda Bournemouth ninka lagu magacaabo Jefferson Lerma daqiiqadii 30aad ee ciyaarta ay Arsenal hoggaan ku qabteen gool eber ayayna ciyaartu ku hogaamiyeen wax yar uun kadib 45 daqiiqo inta aan qaybta nasiinada la aadin Joshua King ayaa gool qurux badan ugu shubay kooxda Arsenal markii dib lisugu soo labtana laba jaalo isxixiga waxa qaatay Jefferson Lerma oo on gool hore isaga dhaliyay ninka lagu magacaabo Nathan Ake balse 67 daqiiqo Arsenal waxa guul darro aan raado barbardhac ka badbaadiyay 3 dhibcoodna faraq ugu shubay xidiga xulka qaranka Gabon Pierre-Emerick Aubameyang turning blind must know this Aubameyang slides it in and Arsenal well it was coming wasn't it the weight of pressure was in Arsenal well it's Kolasinac who pulls it across and Aubameyang slides it in and Arsenal well it was coming wasn't it sidaasna kooxda kubadda cagta Bournemouth ayaa lagu macsalaameeyay waxayna ka dhigan tahay Arsenal markan inay 3 dhibcood oo muhiim ah ay ku soo qaateen garoonka Vitality Stadium kala sareynta Premier League hadii aan fiirino toddobaadkan kooxda kubadda cagta Manchester City waxay u muuqataa in horyaalka ay difaacan karaan 13 kulan ay ciyaareen 35 dhibcood ay leeyihiin Liverpool kaama har ay leedahay City aniga adiga waxaan ku kala bixi karnaa in horyaalka qaybiisa ugu dambeeyo 33 dhibcood ay leedahay Tottenham ayaa kaalin saddexaad soo gashay oo 3 dhibcood kulankii derby London beerka ka soo tunta kooxda kubadda cagta Chelsea ninka sigaarka caanka ku ah kooxdiisa Chelsea iyo waliba Zarina waxay u dhaceen kaalinta afraad 28 dhibcood Arsenal ay hal dhibco kaliya ka sareeyaan Emery wuu iskeena dabcan 27 dhibcood ayuu ku fadhiyaa kaalinta shanaad Manchester United waxay ku jirtaa kaalinta toddobaad iyadoo oo waliba leh 21 dhibcood Manchester inay dhunto ana marqaati ka halkaasna waxaan kaga talaabi doonaa kulamadii waliba ciyaarihii la ciyaaray xalayto kuwa la ciyaari doona hadii aan fiirinana maanta ama ilaa iyo caawan waxa kamid ah horyaalka Premier League Burnley waliba kooxda kubadda cagta Newcastle ayaa ku balansan garoonka Tottenham halka Serie A dalka Talyaanigana kooxaha Cagliari iyo Torino ay wada ciyaari doonaan
markaana sheekooyinkii suuqa iyo waxyaabaha ka cusub haddii aan fiirnan kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa diyaar u ah markaan inay soo qaataan xidiga jooga dheer ee xulka qaranka Austria ninka lagu magacaabo Mark Arnautovic wargeyska The Mirror waxa uu leeyahay kooxda Manchester tababareeda Jose Mourinho ayaa diyaar u ah in xilli ciyaareedkan Anrado bisha Janaayo ama suuqa jiilaalka garoonka masraxa riyada in lagu soo kordhiyo xidigii hore ee kooxda kubadda cagta ee Stoke ninka lagu magacaabo Mark Arnautovic tababaraha ciyaaryahankani Anrado kooxda kubadda cagta Manchester United hoos u dhac xoogan ayaa ka muuqda markii loo fiiriyo kulankii ugu dambeeyay Premier League in ay barbardhac gool la'aan ah la galeen kooxda magaalada London ka imaada Crystal Palace ciyaartii ka dhacday garoonka Old Trafford shaadiinta cascas hadda 7 dhibcood ayay ka hooseeyaan kaalinta afraad kala sareynta Premier League iska badaa hogaamiyaasha sidaas darteed Manchester qalqiil ayaa ku jira tartanka Champions League booska ay kaga soo bixi lahaayeen dhamaadka xilli ciyaareedkan taasi waxay sababi kartaa Jose iyo Manchester inay u baahan yihiin ciyaartoy cusub in lagu soo kordhiyo kooxda ka imaada magaalada Manchester Arnautovic waxa si xoog waa qayb kamid ah ciyaartoyda sida xoogan loo xiriirinayo kooxda Manchester United isagoo oo waliba 29 jirkan The Mirror ay leedahay 50 milyan ee Manchester u qorsheysay qaabkii kaga soo qaadaleed garoonka Britannia Stadium Australian-kan heerka caalami wuxuu hore ugu soo shaqeeyay ay hore kaga soo wada shaqeeyeen garoonka kooxda kubadda cagta Inter Milano xilli isaga iyo Jose ay ku wada sugnaayeen garoonka Jose Meza xidigan 16 gool oo Premier League ayuu u dhaliyay kooxda West Ham tan iyo markii Stoke uu ka imaaday xilli ciyaareedkii 2017 ugu dambeyntiina xidigan waxa leeyahay bisha soo aadan waxay u badan tahay Mark Arnautovic West Ham ay iibin doonto kooxda kubadda cagta Manchester United iyo ciyaaryahankan qarka u saaran yahay isla Manchester sheekooyinkooda waxa kamid ah xidiga lagu magacaabo David Gea markaan boorsooyinkiisu waxay xirtay bisoo ku daayay ninkan wuxuu ku wajahan yahay magaalada Paris ee caasimada Faransiiska gaar ahaan garoonka Parc des Princes ee ku ciyaarta kooxda Paris Saint-Germain ciyaaryahankan qandaraaska kula jira kooxda Manchester wuxuu ku eegyahay bisha June 2019 waxaana xidigan waxa uu harta qandaraaska kula jira kooxda Manchester in ka yar 12 bilood waana sababta keentay xidigan mustaqbalkiisa gabi ahaanba in uu shak weyn iyo mugdi geliyo si joogistiisa garoonka Old Trafford 27 jirkan wuxuu aaminsan yahay in mustaqbalkiisa uu ku dhumi doono hadii Old Trafford uu sii joogo Jose uu ka sii shaqeeyo sidaas darteed wuxuu sheegay in uu jecel yahay inuu koob ku guuleysto isbedelna uu la imaado xidig heerka caalami ee dalka Spain ayaa waxa jiraan kooxo badan inay baad goob ugu jireen waxaana kamid ahayd wuxuu kamid ahaa 3 ciyaartooy oo gool hayaal ah oo Juventus u diiwaan gashnaa inay ku bedelaan legendigii qaranka Talyaaniga iyo kooxda Bianconeri ninka lagu magacaabo Gianluca Buffon oo dhamaadkii xilli ciyaareedka la soo dhaafay kamid noqday kooxda PSG De Gea hadda waxa si xoogan loo xiriirinayaa kooxda kubadda cagta Real Madrid sidoo kalena balse Real Madrid aadistiisa wuxuu shak weyn galay kadib markii xidiga lagu magacaabo Thibaut Courtois si rasmi ah xilli ciyaareedkan bilowgiisa uu kaga mid noqday kooxda ku ciyaarta Santiago Bernabeu laakiin Daily Mail iyo wargeysyada Ingiriis ka soo baxay waxay leeyihiin xidigan wuxuu u dhaqaaqi doonaa Parc des Princes PSG ayaana diyaar u ah xidigan in 60 milyan ay ka bixiyaan 4 sano heshiisna ay ka saxiixdaan taasina waxay ka dhigan tahay Manchester haddaba inay sii tabaabashaysto sidoo kalena ay diyaar u tahay goolhayihii hore ee kooxda Atletico bedelkiisa in la keero garoonka masraxa riyada waxaan ugu horeeyo ama ciyaari lambar 1 waxa uu ah kooxda Manchester soo qaadashada Everton iyo qaranka 3 libax ciyaarankooda ninka lagu magacaabo Jordan Pickford waana xidiga ugu horeeya ee diirada u saaran kooxda Manchester United ee la keeni doono garoonka Old Trafford sidoo kale sheekooyin kale hadii aan sii fiirnana dooda ugu weyn waxay ka taagan tahay kooxda Real Madrid tababareeda Santiago Solari kulanka tartanka Champions League uu wajihi doono kooxda kubadda cagta Roma leen aad ku isticmaali doono Madrid martan iyo markii loo magacaabay tababar Santiago Solari guuldaradii ugu horeysay toddobaadkan waxay kala kulmeen kooxda kubadda cagta Ever kulan ka tirsan La Liga iyaga oo 3 gool iyo Ever guuldaro ah la cunsiyo kooxda Los Merengueska laakiin wargeyska Don Bolon wuxuu leeyahay waxa shaki weyn uu ka taageerto wuxuu ciyaari doonaa ninka lagu magacaabo Solari kulankiisii ugu horeeyay ee tartanka Champions League oo kooxda Real Madrid uu maamulo balse waxa laga fikirayaa qaabka uu ku soo gali doono ama shaxda ku soo gali doono waxa la sii saadaalinaa shax ahaan inuu ku soo gali doono Solari Courtois uu ku soo bilaaban doono sidoo kale Ramos Fren Carvajal iyo Marcelo Kroos Isco iyo Modric inay ciyaari doonaan sidoo kalena afka hore weerar ay wada ciyaari doonaan ciyaartooyda kala Bale Vasquez iyo Benzema waa shaxda macquulka ay kooxda kubadda cagta Real Madrid ciyaari karto kulanka Roma ay la ciyaari doonto tartanka Champions League marka aan fiirno Real waxa ka maqnaan doono Nacho Casemiro oo isagana canqaw ka dhaawacan iyo xidiga lagu magacaabo Mariano Diaz iyo Alvaro Ardiziola taasoo ay u badan tahay tababaraha lagu magacaabo Santiago Solari ee ku adkaan doonto in uu la imaado shax adag isagoo waliba sheegay inuu wax badan ka bedeli doono shaxdii ay guuldarada kala kulmeen kooxda kubadda cagta Ever waliba waa kooxdii Ever dabcan guuldaradii ay kala kulmeen haddana waxa la leeyahay Dani Carvajal wuxuu noqon doonaa Alvaro Ardiziola
ciyaaryahan bedel u noqon doono kulanka Roma ee la ciyaari doonaan ee Champions League. hagaag sheekooyinkeena kalena waxyaabaha ugu waaweyn sportiga waxaa kamid ah legendigii weynaa ee qaranka Ivoria iyo kooxda kubadda cagta Chelsea Didier Drogba ayaa ka dhawaajiyay inkastoo toddobaadkan uu ku dhawaaqay si rasmi ah ciyaaryahankan halyeegii hore ee Chelsea gabi ahaan wuxuu ka fariistay kubadda cagta sidoo kalena wuxuu ka dhawaajiyay difaacyadii ugu adkaa uu ka hor imaaday waayihii uu ku guda jiray ciyaarista kubadda cagta toddobaadkan ayay ahayd markii Chelsea iyo Drogba ay u dabaaldegeen markoodii ugu horeysay inay ku guuleysteen tartanka Champions League ciyaartii sanadii 2012 ee finaalaha la ciyaareen kooxda kubadda cagta Bayern Munich ciyaarka dhacday garoonka Allianz Arena Rigor Realna Chelsea ay kaga qaaday tartanka Champions League kooxda kubadda cagta Bayern Munich waxaan lagu xusuustaa championkaas inuu ahaa championkii Chelsea uu ku macsalaameeyay legend Didier Drogba Didier wuxuu sheegay ama toddobaadkan wuxuu ka dhawaaqay inuu ka fariistay guud ahaanba ciyaaraha ciyaaryahankana wax badan ayuu soo ciyaaray isagoo horyaalo kala duwan u soo ciyaaray sida horyaalka Premier League horyaalka Faransiiska ayuu ku soo bilaabay sidoo kale Premier League horyaalka China Mareykanka iyo horyaalka Turkiga ayuu ciyaaryahankan soo ciyaaray waana mid kamid ah weeraryahanadii ugu adkaa ee taariikhda soo maray kubadda cagta isagoo waliba weeraryahano badan aad ugu awaadeen aan raado difaacyo badan aad ugu sheegteen waraahiyadii caanka ah Drogba lagu xusuusan doono dadka ka dhahay waxaa kamid ahaa ninka kabtankii hore ee kooxda Barcelona Carlos Puyol inuu yiri weeraryahankii ugu dhibka badnaa ee aan weligay ka hor imaaday waa Didier Drogba iyo sidoo kalena tababarihii hore ee kooxda Arsenal Arsene Wengerna hadaladii uu ka dhahay Drogba waxaa kamid ahayd Drogba waa Drogba markastoo Arsenal arka waa nin dhibaateyn karo hadalkaas wuxuu yiri xilli kala tasray iyo kooxaha Arsenal ay wada ciyaareen inagoo ogeen Drogba inuu wax badan goolal ka dhaliyay Arsenal markii uu ka tirsanaa kooxda Chelsea laakiin markii uu tagay kooxda kubadda cagta kala tasray dalkaas Turkigana mar uu ka hor imaado Arsenal gool ayuu ka dhaliyay kadib waxaa hadlay tababarihii hore Arsenal ninka lagu magacaabo Arsene Wenger isagoo yiri Drogba markastoo waa Drogba meel kastoo Arsenal ku arkan gool ayuu kaga dhaliyaa bal aan fiirino marka Drogba difaacyadii uu doortay waliba kuwa uu aaminsan inay ahayn kuwa ugu dhibka badnaa uu ka hor imaaday Drogba wuxuu sheegay ama wuxuu si rasmi u sheegay difaac inay ugu dhib badnaayeen Rio Ferdinand iyo Nemanja Vidic kuwaas oo ka wada tirsanaa kooxda kubadda cagta Manchester United wax badanna waxa ay soo dhaxmaray xifaaltan xoogan kulankii adkaa ee dhexmari jiray kooxaha Manchester iyo Chelsea xilli ay Vidic iyo waliba Rio Ferdinand ay ka tirsanayeen kooxda Manchester Drogba uu ahaa hogaamiyihii Chelsea sidoo kalena wuxuu sheegay in ay jiraan laba difaac oo kale iyaga aad u adkaa u dhib badnaa ama uu san jeclayn uu ka hor imaado waxayna kala hayeen lamaanihii kooxda Barcelona Carlos Puyol iyo ninka lagu magacaabo Gerard Piqué wuxuu leeyahay dabcan way ugu adkeed in aan ka hor imaado afartan difaac waana min laba ciyaartooy oo lamaanayaal ah waxaan u arkaa inay yihiin kuwii isla ciyaar kuwoodii ugu wanaagsanaa ee aan ugu nacbaa inaan ka hor imaado ama difaac ahaan ugu adkaa Vidic iyo Ferdinand oo aan wax badan Premier League isku aragnay sidoo kale waxaa jiraan laba kale oo adeegan aad u dhib badnaa ayuu leeyahay sidoo kale igu adkaa inaan ka hor imaado waana Carlos Puyol iyo ninka lagu magacaabo Gerard Piqué dabcan afartaas ciyaartooyna Drogba ciyaaro kala duwan ayuu kaga hor imaaday ha noqoto tartanka Champions League ama Premier League ee wax badan isku arkeen Ferdinand iyo Nemanja Vidic sidoo kalena warbixinadii ugu dambeeyay ee dhankayga hadii aan fiirno guud ahaan barnaamijka ugu dambeyn doono waxaa kamid ah xidiga xulka qaranka Faransiiska nin koobka adduunka ku guuleystay Ousmane Dembele Barcelona ka tirsan waxay u badan tahay inuu ka dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta Barcelona waxaa jiraan warar xan ah oo ku aadan Barcelona inay soo celin doonaan ciyaaryahankii hore ee kooxdan sidoo kalena qaranka Brazil hogaamiyay Neymar Jr taasina waxay ka dhigan tahay gabi ahaanba xidigii hore ee Borussia Dortmund inuu diyaar u yahay inuu ka dhaqaaqo kooxda Barcelona kooxda
ku ciyaarta garoonka Camp Nou waxay diyaar u yihiin ciyaaryahankan hadduu asaga diyaar u yahay in kooxda laga fasaxo in lacag xoogan ay ka siistaan kooxaha Premier League ciyaara ee Liverpool iyo Arsenal oo xidigan baad goob ugu jira marba haddii ay noqoto in Camp Nou iyo gobolka Catalan uu dib ugu soo laabto Neymar Jr xidiga ugu horeeya ee kooxda Barcelona ka dhaqaaqi doono waa ninka lagu magacaabo Ousmane Dembele guud ahaan waxa halkaas iga barnaamijkii ciyaaraha tan intaan barnaamijka kala mid hawada kaga kulmi doonaan waxaan idinkaga tagayaa nabadino